filaya duco iyo garab istaag iyo saaxiibtinimo dhow oo aan ku wada shaqeyno dhamaan halkan waa bartaan YouTube-ka ku leenahay Bina Live News idil ahaantiiba ku soo dhawaada warka maanta waxa warkaas idin soo tubinaya anigoo Isla wasaaraha cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta aqalka shacabka dawladda federaalka Soomaaliya uu cod gacantaaga ku meelmariyay isla markaasi ra'iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre ayaa isaguna dhankiisa ka dareen celiyay waxaana hadaladiisa kamid ahaa sidan Bismillahir Rahmanir Rahiim wadana gudoomiye ku-xigeenada golaha shacabka gudoomiyaha maxkamadda sare xildhibaanada sharafta leh dhammaan inta kale ay nala joogta qaybaha kala duwan ee hay'adaha dawladda iyo bulshadaba markale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waxaan dareemayaa mudane gudoomiye farxad aad u weyn kalsoonida ay siiyeen si guud ay siiyeen oo kala hadlahayn walaalahayga sharafta leh xildhibaanadeena qaranka isla markaa waxaan dareemayaa culays aad u weyn oo gundhigiisu yahay kalsoonidaas waxay ku salaysan tahay aan ogahay oo ah expectationska iyo filashooyinka ay iga qabaan runtii taas oo filashadaas oo shacabkii oo ayagu matalayaan iga qabaan iyo duruufaha dalkeena yaala marka la isku maajgareeyo ama la isku balance gareeyo cabsi badan bay gelinaysaa laakiin waxaan ku kalsoonahay sida aad codka ina siiseen inaad garab waxaana hubaa haddaad garab istaagtaan in caqabad kastoo jirta aan si wada jira uga gudbi doono haddii Ilaahay ilaalo kaftan yar haddaan ku daranaa waxaan codsanayaa markaan xukuumadda soo dhisana sidan oo kale Ilaahay idinkiis waxaan idin ballan qaadayaa sidii aan khudbadeedii hore ku sheegay kelmadeedii hore khudbad ma aha kelmadeedii hore aan ku sheegay in aan soo dhisi doono xukuumad Ilaahay idinkiis tayo leh oo gabdho iyo wiilal badan oo halkan ay ku jiraan waxaan runtii idinka mahad celinayaa oo aad ku mahadsan tihiin dadaalkii dheeraa ee la soo galay iyo sidii runtii naftii horanimada ahayd aan ku soo shaqeynaynay muddooyinkii ugu dambeeyay maantana waxay maraysaa in golihii fulinta Ilaahay idankiis aad chiefkooda ansixisaan si loo soo dhiso war badan iguma jiro hadda xukuumadda barnaamijkeeda ayuu ku imaan doonaa warka badan iyo khudbada badan haddii Ilaahay yiraahdo laakiin hadda waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan idin mahad celiyo waxaan idinka filayaa duco iyo garab istaag iyo saaxiibtinimo dhow oo aan ku wada shaqeyno dhamaantiin aad iyo aad baad mahadsan